barasaabka gobolka Buuhoodle Cabdirasaaq Ismaaciil Axmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada Buuhoodle ayaa hambalyo u diray ergooyinka isugu jiray simada iyo cuqaasha ee ka soo gurmaday gobolka ka tirsan Soomaaliland isla markaana soo kala dhex galay beelaha walaalaha ee diruurtu ku dhex martay gobolka Buuhoodle wuxuuna tacsi u diray eheladii dadkii ku dhintay mashaaqadii ka dhacday Buuhoodle in ugu guuleysto xal u helisteeda waxaan hambalyo gaara u celinayaa ergooyinkii isaga timi Buuhoodle deegaanada ku xeeran hadday isma tahay hadday cuqaal tahay hadday garbood tahay hadday culimo tahay ayaan mahad gaar u celinayaa waliba qaarkood ay ku noofwaayeen waxaan tacsiin u dirayaa marxuumkii ku geeriyooday guud ahaan dadkii ku geeriyooday حلو هلسته شقاقده qoyskii ehelidii uu ka baxay in Ilaahay samiriyo iimaanka siiyo alxamdulillah rabbil alamin waa lagu guuleystay labada beelood ee walaalaha ahaa dhibtii shaqaaqada ku dhex martay Buuhoodle gudihiisa iyadoo dad kala fara badan oo shacabi ay dagaalkaasi saameyn ku yeeshay oo ay xabadu meel walba ugu tagtay oo dhaawac iyo waxyaalo fara badan ay soo gaadhay alxamdulillah xal baa loo helay ciidamadina waa la kala qaaday أنتوا اللي مالوا عم بيمارسها رونانتي ما تشعلينا كنت قالوا أنا جو قدومي قبل كا بعدما هذا الله يصورن إن أي يصور لنا إذا بلدانا إذا بلدانا أبوه هذا يصور لنا متشلو هدي يصور لنا ده كمان مقنعين إذا بدنا قبل بدنا بيلوت شوغان خروج بيلوت شوغان يلي لوت شوغان ومش بيلوت شوغان ول بيت شوغان بلعت بيت شوغان لكن بيت شوغان Buuhoodle dhowr meelood ka joogan yaani kamaan maqnaadeen cid ka maqnaan lahayd xukuumadda ka mid ma jirto gabi ahaanba horta taasi waa taa waa beelo walaalaha isku dhacay arrintiina xal baa loo helay waxa weeye wax garad iyo culimo iyo aqoonyahan iyo dhalinyaro cid walba ka kacday maanta iyagoo gacmaha haysta beelihii isku dhacay dhalinyartoodii ayay suuqa Buuhoodle dhex qaadayaan iyagoo ka mudaaharaadaya arrinta alxamdulillah rabbil alamin mahad dhan ilaahay soo subnaatay ilaahay noo suurto galiyay ka xukuumad ahaan dadaalkii laftooda ay ka muujiyeen waan uga mahad celinayaa waayo cid raali ka ah in bulshada reer Soomaaliland ay isku dhacdo ma jirto dadka meesha ku dhintay waa dad reer Soomaaliland kii wax ku noqday waa dad reer Soomaaliland dhamaantood waxa weeyaan cid xumaantooda raali ka ah ama ku istiraxaysa ma baa jirto gidi waa laga wada tacsiisnaa waa laga wada xumaa ilaahayna waxaan leeyahay intii ku dhimatay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo intooda kalena beerkooda ilaahay burcadaha isu mariyo bulshada reer Soomaaliland waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa gees ilaa gees yaani sida ay gobonimada lahayd ay nin waliba uga xumaaday uga tiirayooday in waliba halkiisa uga tafaxaytay halkiisa nin waliba uga soo jeedinayay baaqa nabadgelyada waa mid loo xusnaan doono mid kale waxaan sheegayaa kuwa jeclaysanaya xumaanta kuwa jeclaysanaya waxaan leeyahay warka waa tooba ولله إنه نقضى سبحانه وتعالى والمعلم بعد ما يصلح حسابته من دونه عبد العزيز آذن تلفزيون قرن كسوماليلاند Buuhoodle